بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabay hadalkayga anigoo u mahadnaqaya maxamed ilig oo aan nin aad iyo aad imika khabiir ugu noqday sida fagaarahan oo kale loo maamulo interviewada loo sameeyo marka dhalinyarada caynkaas ee xirfadii si wanaagsan u bartay inaynu ku faano ayaynu u baahanahay marka maxamed uu mahadsan yahay Inspire Group oo noqday ilaa aanu maalintan bartay doorashooyinkii markii aynu ku jirnay inay goor walba isku dayaan inay sameeyaan waxaan hore loo aqoon oo ay abuuraan ficil cusub oo ra'yiga la isku weydaarso marka iyaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin marwada iyo mudanayaasha aanu maanta wadaagno fagaarahan oo ah dad magac weyn iyo sharaf weyn ku leh dalkeenan Somaliland iyagana aniga waxay tahay maxaan ku rahay maamuus weyn kala qayb galo hadallada caawa inoo socda iyo fikradaha lays dhaafsanayo iyagana aad baan ugu mahadnaqaya idinka oo dhalinyaro u badan anu maba arag hool sidan u soo buuxsama caawa horteed waxaan rajaynayaa inaydan disappointed noqono waxa halkan ka soo baxa ay noqdaan ma ahun ku xaradhaamiya halka aad jeceshahay ku xoqo ku xaradhaamiya laakiin ay noqdaan afkaar ku geliya inaad adiguna dib u fikirto oo marka amba aad ku soo noqoto halkii aad joogtay inaad si adkayso amba aad wax ka badasho ayaan rajaynayaa laakiin aad iyo aad ayay this is very impressive dadka halkan iskugu yimid dhanna de waabay baqdin baabay ku gelinaysaa intaasoo qof in badan oo ka aqoon badan amba ka fikrad wanaagsan ayaa laga yaabaa inay halkan soo fadhiyaan marka anu I feel a bit intimidated tonight laakiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hadalkayga waxaan ku bilaabayaa oon doonayaa inaan halkan soo dhigo dadka fikira ee isku daya inay rogrogaan su'aalaha caynkaasa ee waaweyn ee ummad hor yaala labay noqdaan two kinds of thinkers labay noqdaan mid su'aalo la isweydiiyey oo miiska yaala isku daya inay si cusub uga jawaabaan and that's very important waa wax qiimo weyn su'aashu laakiin waa la yaqaanaa waa technical marka su'aashaas ayuu qofku isku dayayaa si aan hore loo arag inuu uga jawaabo taasi waa mid oo waa wada la maro oo faa'iido badan leh oo su'aasha dadka dee kaga taalla wadnaha kaga taalla amba maskaxda kaga jirta inuu qofkaas مثقفك amba thinkerka ee fikiraya uu ka jawaabo talabaadina waxa weeye qof isku daya inuu su'aasha taabto laakiin this is important inuu rogo dadku siday markaa arrintaa u arkayaan su'aasha siday u arkayaan perspective siday u arkayaan inuu si kale u rogo oo markaa ay ka soo baxda halka doodo cusub oon hore ugu jirin su'aasha gudaheega aan ku jiro marka vision cusub la keeno visionkaasuna marka dambe uu keenayo karti su'aashii dib inta loogu noqdo markaa iyada la furfuro oo jawaab cusub la keeno anu waxaan isku dayay caawa waqtiga yaree gaabaneen haysto inaan ka labaad noqdo inaan isku dayo inaan rogo sida aad u arkaysaan aniga oo aan ka baxsanayn su'aasha culus ee ina hortaal marka jawaabta ugu horeysan su'aasha ka bixinaya waxa weeyi maxamed wuxuu yidhi maya waxaanu dambaynu ka wada hadalnaa ma jirto haddii aan fahmay su'aashii jawaabtiisa anu waxaan leeyahay lagama maarmaan weeye in la is hor fadhiisto oo lala ha baan leeyahay waayo haddaad mag doonayso waa kelmad maxamed oo isticmaalay caawa ma isticmaalay maalin kale oo dhageysanayo waa kelmad culus haddaad mag doonayso dee dadka magta aad ka doonayso waa inaad sor fadhiisataan ood maqraysataan ood qancisaan marka su'aasha jawaabteeda oo gaabani waa yes ha waa in la wada hadlo laakiin waxaa soo gelaysa su'aal kale oo ah why maxaynu u doonaynaa inaynu wada hadalno waayo wax badan baan maxamed ku raacsanahay sida taariikhda uu soo dhigay laakiin maxaynu u doonaynaa in aynu u wada hadalno Soomaaliya aynu wada hadalno
anu laba amuurood baa ugu waaweyn oo inagu kalifaya inaynu wada hadal Soomaaliya la yeelano sida halka aan doonayno aynu u gaadhno oo ah dad adduunyadu garatay oo wadan gooniya oo ismaamulaya oo xora inaynu noqono maxay tahay ta ugu horeysa maraboob bay nagu noqdeen maraboobna waa inaad iska furfurtade waa inaad iska furfurtade haddaad iska furfuraysana waxa ugu horeysa markaa oo aniga ay la tahay waxyaabaha inaga dhaxeeya ay fara badan oo wasiiradeennii hore qaarkood ay taaban doonaan waa inaad waxa jawaabaheegii la helo settling accounts baa ingiriiska la yidhaha ya accountska inaga dhaxeeya inta la xidhada in meel la dhigo lagu heshiiyo la dhaafo taasi waa ko wax badanna way naga dhaxeeyaan maxamedna hadalkiisa wax badan oo qiimo leh ayaa halkaa ku jira oo taabanaya accountska inaga dhaxeeya sida jawaabtoodii uga bixinaya looga bogsanayo talabaad wada hadalka Soomaaliya oo muftaaxa u yahay iyo maraboobtaas aynu iskaga furfurayno waxa iyagii baa inagu marano adduunyadii inaga hor joogay inay adduunyadii ina garato annaga ka wakiila bay leeyihiin goor walba waa dadka iyagii waa walaalaha iyagii waa isla wadankii annaga ka wakiila ilaa imikana adduunyadii waxay leedahay waa runtood oo safaaradii halkan Hargeysa ma fadhiyaan xamar bay fadhiyaan marka waxaynu baahan haday inagu culus tahay inay adduunyadu ina garato oo aynu noqono dad kuraastidoodii kula adduunyada meel walba waxa lagama maarmaana maraboobta Soomaaliya inaynu iska furfurno taasina hadal bay u baahan su'aasha saddexaad markaa waxay noqonaysaa how sidee baa loola hadlaa Soomaaliya si aynu u gaadhno natiijada aynu doonayno sidee laba loola hadlaa maxamedna waan ku raacsanahay wadadii hore inaanay miro badan dhalin sidaynu doonayno anu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa sidaynu ugu hadlayno waa inay ugu soo horeysaa innaka oo dejina dood cilmiyeysan oo taariikhduna ay ogoshahay oo dadka kula doodaya dhanka kale soo fadhiya oo adigu isku qaadan inay kuwan yihiin kuwa aan waxba garan dad badan oo ka xariifsan baa laga yaabaa inay dhanka kale soo fadhiyaan inaad ka sii fikirto in doodaada aan la jabin karin aad ka sii fikirto in aan la jabin intaad iska tagto meel lagu shirayo shaah la iska caboodeetana wax yar yar laga hadlo taasi dood ma noqonayso aduu waxaad doonaysaayo gunta hoose ay tahay in la garto Soomaaliyana ay garato oo lagu kalifo maskaxiyan inay garato inuu wadankani tagay wuxuurnimadiisii qaatay oo 26 June 1960 lagu noqday ayaa doonaysa marka inaad dhigto qisada ya Somaliland oo cilmiyeysan inaad soo wadho oo banaanka soo dhigto anu taa wali ma arag in yar haddaan idinku daro nin ahaan jiray Secretary General of the United Nations ya secretary-ga guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo Afrikaana oo magaciisa la oran jiray Kofi Annan anigu jaamacadda aan jooga ayuu arday ka ahaan jiray ka soo baxay 1959 ayuu ka soo baxay markii dambana wuxuu noqday boardka trustees-ka ee jaamacadda ay wuxuu noqday ninkii ugu magac weynaaye boardka ku jira aniga isaguna waxaanu noqonay labadii Afrikaanka ah ee jaamacadda joogay ee la garanayaan kolka waan isku soo dhawaano waan sheekaysan jiray sanadkii imika inaga tagay ayuu yimid jaamacadda isagoo 80 jir buu markaa noqday bisha May last year 80 jir jaamacadii buu ka hadlay anigu meel institute aan madax ka ahaa ayaa magaciisa loogu daray oo imika la yiraahdo Kofi Annan Institute for Global Citizenship kolka wixii dhamaatay xafladii dhamaatay buu yiri ninku degooni Afrikaan uga sheekaysan oo Israa'iil gurigeygii baan geeyay 80 years old waan sheekaysan kolkaas wuxuu igu yiri haye samatar Soomaaliya ka waranteed arrimo bariyahan halkay maraya kolkaas aan ku yiri Soomaaliya waxa jeegaysa Soomaaliyadii hore mise Soomaaliyada imika wala jiro oo la yiraahdo Somaliland kolkaas ya Somaliland da jirta ha markaasuu igu yiri say u dhacday taas wixii baan yara macnay markaasuu yiri waa ku Ingiriiska ku iyuna ka qaatay dawladnimada 1960 soo maaha ha qisadooda halkeen ku akhristaa buu igu yiri halkeen ku akhristaa qisadooda buuxda ya iyo waxay Soomaaliya uga baxeen iyo waxa soo dhan waan waayay meelaha waxa lagu yaro lagu qorqoray way wax yaro meelaha lagu qorqoro qaarkood aad loo naaxnaaxiyay oo marka farta la saaray sida loo cadaadiyay jabay
ayaan arkay laakiin dood malaasan oo culus oo cilmiyeysan oo cidi jabin karin oo laga soo shaqeeyay anu ilaa caawa ma hayo ku fiicanana waxaan siiyay waan waayay marka taa in la dhigo sidee taa loo sameeyaa bay noqonaysaa marka ya waqtigan sidee loo sameeyaa anu waxaan odhan lahaa anoo soo gabagabeynaya qadiyadeen marka la cilmiyay adigoo filaya dad feedhka sidaada u yaqaana inay ku soo hor fadhiisanayaan oo dhayalsan soomaaliyana inaan dhayalsan dadka adduunyada markhaatiga inoo noqonayana inaan dhayalsan waa dad inaga cilmi badan intooda badan inagaaba xarfad badan marka anu waxaan odhan lahaa sidan qisadeennu ha u eekaato haddii dib loo qorayo dib loo habaynayo kow inaynu horta bal macnayno waxoogaa isku dayno inaan macno somaliland dadaygu waxay ahaan jireen intan gumaysigu iman before 1880s waxaynu ahaan jireen hadda iyadoo cilmiyeysan dee aan ahayn sheeka xariir dee aan ahayn ya iyadoo cilmiyeysan in la dhigo oo haddii ay suurto geli karayso laga duwoo la yidhaaho sidaasaanu ahaan jirnay soomaalida kale ee geeska afrika ku noorna sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ayaanu uga duwannahay oonu uga duwanayn inkastoonu wax badanna wadaagno lakin here are some distinctive characteristics of Somaliland people even before the coming of the colonial project in the 1880s taasi waa kow talabaad waxa weeye dowladda ingiriiska 1884 85 ilaa 1960 waxaynu isla soo marnay iyo wixii dhacay in yar baan idin sheegi dadka Soomaalida waxa ka dhaadhacsan xisbigii SYL Somali Youth League inuu yahay xisbigii ugu horeeyay ee Soomaali ay yeerato ee siyaasiga ee gobonimo Soomaaliyeed doonaya dadku inteeda badani waa universal conviction waa asaas loo haysto aniga researchkayga wuxuu tusay Somaliland 10 sanadood xisbiga SYL intii aan la abuurin 10 years before that in la abuuray waxa la yiraahdo Somaliland Society in halkan la abuuray oo dadkii Somaliland cadan deganaa iyo kuwa halkan jooga ay isku biireen oo isku dayeen marka in Ingiriiskii la hortagaan in wadankan dhaqaalihiisa iyo noloshiisa la dhiso oo marka siyaasad ahaan Ingiriiskii loo riixo waa 10 years before the SYL haddaynu sidaa u hadalno waxay macnaynaysaa sidaynu uga duwannahay aynaan ahayn dad iyagana siyaasadoodu ay bilaabantay SYL iyo wixii ka dambeeyay oo marka SNL iyo NUF iyo USB halka sheekadoodu inaanay ka bilaabmin ay qaar kale ka horeeyeen for example waqtigii Ingiriiska waxaanu isla soo marnay iyo Ingiriiska iyo Talyaanigu siday u kala duwan yihiin una kala duwanaayeen siday u xukumayeen maxmiyadahooda iyo dhulkii ay xukumayeen taaqudheeda faa'iido badan baa ku jirta waayo marka dambe waxay noqonaysaa shaabad ku taala Soomaaliya iyo Somaliland qaybta saddexaad 1960 1960 ilaa 1990 tana in laga hadlo ya intii dawladii dhexe ee Soomaaliya Republic ay jirtay in laga hadlo oo iyada la fahanteeda la wasladeeyo inta la wasladeeyo mid walba deetana lagu agdhigo calaamooyinka iyo evidence aynu hayno in dhibaatooyin fara badan ay naga soo gaareen oo qaar kood Maxamed uu taabto taasina waa saddexaad ta u dambaysaana ay noqoto 1991 ilaa 2019 inaan iyadana si gooniya u macnayno waayo way sheekadii Soomaalida way isbedeshay wixii ka dambeeyay 1991 way isbedeshay marka taasina inaynu si aad oo macno leh aynu xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda wax walba aynu calaamadino waxa sida inaka inoo taabatay arrimahaas inoo taabteen iyo wixii aynu qabsanay haddaynu nahay reer Somaliland wixii ka bilaabma 1991 ilaa maanta aan soo gabagabeeyay waxa weeye marka yaa qaadaya risaalada Somaliland yaa qaadaya halkee la geynaya waa inaan arrimaha ka wada hadalno on meel isla dhig yaa qaadaya halkee la geynaya waxa in laga wada hadlo aniga waxa ay la tahay dadka qaadaya horta deen sida loo cilmiyay oo aan ahayn un waxa la dhisaya committee Somaliland oo ka soo shaqeysa arrimahaas oo kolka reehbel inta laga keenay reehbel inta laga keeno yatana shaqo loo dhib ma soconayso taas it won't work وانا soo aragnay anu I have seen it in my own one soo ark ma shaqeynayso taas kolka waa inaynu la soo baxnaa on xulanaa the best and the brightest of Somaliland rag iyo dumar waa inaan la soo baxnaa waa hadday naga dhab tahay dooda Soomaaliya iyo adduunyaduna ay dhageysanayso kubadda inaynu qaadano waa sidii the finalkii World Cup ko kala World Cup galayso finalka
dee reeraha kama soo ururisid dee waxaad doonaysaa Zinedine Zidane iyo Messi iyo dad caynkaas inay kubadda ku ciyaaraan baad doonaysaa laakiin de haddana ummadda Somalilandna inay iska dhex aragto waa lagama maarmaan onay noqonuun dee afar qof oo wada socdo community ka wada yimidoo iyaguna wada socdo raadinaya Somaliland sidii Soomaaliya ay ula hadli lahayd ee ummaddu iska dhex aragto laakiin marka dambe dad karti leh oo waxaan iibin kara oo maxaan ku raay goolka dhalin kala in la helo waxaan ku soo dhameynayaa haddii adabaleeka haddii plan A-ga aynu leenahay aw suurto geli kari waayo hadduu suurto geli kari waayo waa insurance policy haddii aw suurto geli kari waayo inagoo ku kalsoon inuu soconayo oo guulaysanayo laakiin haddii ayba dhacdo in ay suurto geli kari weydo plan A inaynu guushaa helno maxaynu yeeli ma hargeysuun baynu fadhiyo inu ka barooran oo lanama aqoonsadeedaan hayna mise wax kale aynu haynaa waxaa loo baahan yahay plan B-na in meel la dhigto hadday dantu inagu khasabto aad iyo aad baad u mahadsantiin